tani markii la gaaray heshiiskii doorashada 27kii madaxda ayaa dib ugu noqday xarumooda maamul goboleedyada mar kale ayaa sabtida ku kulmi doonaan magaalada Muqdisho iyagoo wax iska wareysan doona xaaladda soo korortay culayska muuqanaya doorashada Soomaaliya waxaase lagu ballamay 60 maalmood gudahooda in lagu qabto doorashada sida uu qeexay heshiiskii Muqdisho lagu gaaray 27kii May laakiin waxa muuqanaysa in dib kaga dhacday waqtigii lagu ballamay ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble ayaa casuumad rasmi u diray madaxda golaha wadatashiga qaranka oo sabtidu qorshuhu yahay in shir uu kaga furmo magaalada Muqdisho kulankan ayaa la sheegay in isku wareysan doono howlaha qabsoomay arrimaha doorashooyinka tan iyo heshiiskii 27kii May iyo dardargelinta shaqooyinka harsan ay ku geedaaman doorashada caqabado waaweyn ayaa soo baxay oo qayb ka caqabadahaas oo la sheegay in madaxdu ay ku gurfayn doonaan tani markii heshiiskii rasmiga lagu gaaray kulankii ka dhacay teendhada Afisiyoni waxaa lagu guuleystay in dib u habeyn lagu sameeyo guddiyadii farsamo ee doorashooyinka oo cabashada xoogan ay ka keeneen xubnaha mucaaradka 67 xubnood ayay mucaaradka cabasho ka gudbiyeen kuwaas oo 34 kamid laga saaray oo la soo bedelay kadibna ra'iisul wasaaruhu ku dhawaaqay maalinta Khamiis ayaana guddiyada doorashooyinka ee ka shaqeynaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka la sheegay in la xareyn doono loona furi doono tababar socon doona dhowr maalmood sida ay ku waramayaan ila ku dhadhow xafiiska ra'iisul wasaare Roble heshiiskii 27kii May ayaa dhigaya in Soomaaliya doorashada ay ku dhacdo 60 maalmood taas oo u dhiganta 2 bil gudahooda balse midaas ma muuqato mana suurtagelin sida ku cad habsida ay wax u dhacayaan marka loo eego doorashada iyo waliba khilaafka ka dhashay guddiyadii doorasho hadda maxaa soo kordhay madaxda ay ka shirayaan ila wareedyo qaarkood oo ku dhadhow xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa la sheegay madaxda qaarkood ay soo gudbeen cabasho ku aadan in waqtigan ay aad u adagtay in laba deegaan doorasho lagu qabto maamulada qaarkood arrintan ololaha iyo xusulduubka ugu jira waxaa kamid ah maamulka Jubbaland Hirshabelle iyo sidoo kale Koonfur Galbeed oo qudheeda qayb ka maamulada xusulduubka ugu jira ay doonayaan in hal deegaan doorasho lagu soo koobo heshiiskii September la gaaray ayaa wuxuu dhigayay in laba deegaan doorasho ay ka qabsoonto guud ahaan dalka oo dhan laakiin culeysyo waaweyn ayaa soo baxay Jubbaland magaalada Garbaharre ayuu qorshuhu yahay inay ka dhacdo doorashada waxaana halkaasi taala 16 kursi laakiin Axmed Madoobe iyo maamulkiisa caqabad weyn ayaa ka haysata doorasho ka dhacda degmada Garbaharre sababtu waase xubnaha halkaasi jooga oo aad u diiday maamulkiisa Hirshabelle ayaa waxay caqabad ka haystaa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolkaasi Hiiraan madaxweynaha la doortay maamulkaasi Hirshabelle Cali Guudlaabe tan iyo doorashadiisa ilaa hadda muusan ku guuleysan inuu tago magaalada Beledweyne halkaas oo qorshuhu ahaa in lagu qabto xafladda caleemasaarka laakiin waa ay guuldareysatay isku dayo badan oo doonaya Cali Guudlaabe inuu ku tago magaalada Beledweyne ayaana suurtagelin rabshado banaanbaxyo iyo waliba sidoo kale abaabul xoogan oo halkaas ka jira ayaana qasabtay in Cali Guudlaabe uu ka baaqdo aad ayayna u adagtahay in doorashada xildhibaanada lagu qabto halkaasi meel madaxweynihii maamulkaasi laga diidan yahay caqabada kale ee soo korortay waxaa qayb ka madaxweynaha Koonfur Galbeed oo qodiisa sheegay in walaac amni ay ka jirto magaalada Baraabe caasimada gobolkaasi waa caasimada maamulka Koonfur Galbeed rasmiga ah ee Shabeellaha Hoose ku taalo Baraabe dhowr kiiloomitir waxaa u jira ururka Al-Shabaab oo deegaano waaweyn halkaasi saldhigyo military ku leh waxaana laga cabsi qabaa in duulaan xoogan ay ku soo qaadaan waqtiga doorashada ama xilliyada habeenkii taasoo qasbi karta sababo dhanka ammaanka ah in lagu koobo magaalada Baydhabo waana caqabadaha waaweyn oo laga yaabo in madaxdu ay ku gorfayaan shirkooda sabtida lagana yaabo in hal deegaan doorasho lagu soo koobo taasoo ka dhigi doonta in lagu noqdo wadadii 2016 farmaajo ayaana watay qorshaha laba deegaan doorasho laakiin waxa u muuqata in caqabado waaweyn ay soo baxeen